hooyo ma ogtahay in cunto kastood isticmaasho xilliga aduurka leedahay ay saameyn buuxda ku yeelan karto koritaanka ilmahaaga, tamartaada iyo caafimaadkaagaba. maanta waxaan kula wadaagayaa 10 cunto oo faa'iido u ah hooyada xilliga uurka leedahay, taas oo kor u qaadaysa caafimaadka hooyada iyo koritaanka ilmahaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan wanaagsan idin lahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka haweenkii caafimaadka. magacaygu waa Sagal Cabdilaahi, ahna kalkaalisa caafimaad. halkan waxaan toddobaadkiiba mar idin kula wadaagaa xogo muhiim ah oo ku falaqeyno caafimaadka haweenka. muuqaalkan maanta wuxuu daaran yahay 10 cunto oo manfac u leh hooyada xilliga uurka leedahay. 10kan cunto aan kula wadaagi doono waxay khubarada caafimaadku ku taliyeen inuu manfac weyn u leeyahay hooyada xilliga uurka leedahay. waxaa kamid ah timirta. timirtu waxay kamid tahay cuntooyinka ugu awooda badan ee hooyada uurka leh ay maalin kasta ka faa'iideysan karto. timirtu waxay bixisaa tamar dabiici ah oo ka caawisa hooyada daalka iyo tabardarida. sidoo kale timirtu waxay ka hortagtaa dhiig yarida xilliga uurka. timirtu waxay qani ku tahay ironta, taasoo kor u qaada dhiigga isla markaana yareysa wareerka iyo daalka badan. waxaan iyana meesha ka maqnayn fiberka, kaasoo door muhiim ah ka qaata shaqada dheefshiidka. timirtu waxay hoos u dhigtaa calool istaaga oo aad ugu dhaca haweenka xilliga uurka leeyihiin, waxayna hagaajisaa shaqada mindhiciraha. sida ugu fiican aad u isticmaali karto waxaa kamid ah inaad 3 xabo ilaa 4 xabo aad cuntid subaxdii. sidoo kale tani waxay tahay sunnihii nabigeena sallallahu calayhi wasallam uu inoo sheegay. cuntada labaad ee faa'iidada waa hooyada xilliga uurka leedahayna waxa weeye liin macaanta. liin macaantu faa'iidooyinka u leedahay hooyada uurka leh waxaa kamid ah inay xoojiso difaaca jirka, kana hortagto caabuqyada maadaama ay hodan ku tahay vitamin C aad u badan. sidoo kale waxay ka caawisaa jirka inuu si fiican uga faa'iideysto birta, taasoo yareysa dhiig yarida. sidoo kale waxay yareysaa mataga bilaha hore uurka. haddaba isku day inaad cunto maalintii 1 ilaa 2 xabo oo liina, iyo haddii aad sharaab ahaan u shiidan karaysidba. cuntada saddexaadna waxa weeye tufaaxa. tufaaxu wuxuu leeyahay hooyada faa'iidooyin badan, taasoo ay kamid tahay inuu ka caawiyo jirku inuu helo iron si looga hortago dhiig yarida, wuxuuna siiyaa tamar dabiici ah oo ka caawisa hooyada daalka xilliga uurka. tufaaxu wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka, wuxuuna yareeyaa calool istaaga. cuntada afraad ee kale muhiimka u ah hooyada xilliga uurka leedahay waa beedka. beedku waa cunto aad muhiim ugu ah hooyada uurka leh, kaasoo ka caawiya inay hesho nafaqooyin dhammaystiran. beedku wuxuu leeyahay borotiin badan oo dhisaya unugyada ilmaha iyo jirka hooyadaba. waxaan iyana ka maqnayn vitamin D iyo calcium oo ka caawinaya lafaha iyo ilkaha ilmaha si ay si wanaagsan ugu kobcaan. beedku wuxuu leeyahay dufan caafimaad leh oo loo yaqaano omega 3 oo muhiim u ah maskaxda ilmaha. waa cunto fudud oo si sahlan loo diyaarin karo, taasoo hooyada ka caawinaysa inay si joogto ah u qaadato. sida ugu wanaagsan aad u cuni karto waa inaad isticmaashaa 1 ilaa 2 xabo beed ah maalintii, la karkariyey ama la dubay, adigoo iska ilaalinaya saliida badan. ha ilaabin inaad qayb uga dhigato cuntadaada maalinlaha ah. faa'iidooyinka kalluunku u leeyahay hooyada uurka leh waxaa kamid ah waxa ku jira omega 3 oo muhiim u ah maskaxda iyo indhaha ilmaha. sidoo kale waxa ku jira vitamin D, calcium iyo iron oo dhisaya lafaha. waxyaabaha loo baahan yahay in hooyada uurka leh iska ilaaliso waxaa kamid ah kalluunka qaydhin ee aan sida fiican loo karinin. cun kalluun cusub oo la kariyey. xaddiga ay qaadan karto hooyada uurka lehna waa 2 ilaa 3 jeer toddobaadkii si nafaqo fiican ay u hesho hooyada uurka leh. cuntada lixaad ee faa'iidada u leh hooyada uurka leh waxaa kamid ah digirta. digirtu waxay tahay cuntooyinka baalka leh. cuntooyinka baalka leh oo dhan waxay kamid yihiin siyaabaha lagu ilaalin karo heerka sokorta dhiigga oo hooseeya, taasoo yareynaysa halista cudurka macaanka ama waxa loo yaqaano gestational diabetes oo ku yimaada hooyada xilliga uurka leedahay, isla markaana ka dhigaysa in muddo dheer ay ku jirto caloosha oo aanad wax gaajaa dareemin. noocyada digirta oo dhan oo misurku kamid yahayna waxa ku badan fitamiinka loo yaqaano fiberka, kuwaasoo wanaagsan habka dheefshiidka. cunista digirtu waxay ka caawin kartaa haweeneyda uurka leh inay hesho nafaqo ku filan. haweenkana waxaa lagula talinayaa inay cunaan cuntooyinka baalka leh, gaar ahaana digirta ugu yaraan 2 jeer. cuntada toddobaad afakaadhadu waa miro hodan ku ah nafaqooyin muhiim ah sida folate, magnesium iyo potassium, kuwaasoo si gaar ah faa'iido ugu leh haweenka uurka leh. cunista ama cabista maalin walba in yaroo afakaadha waxay ku siinaysaa qayb weyn oo nafaqooyinka ah, taasoo kaa caawinaysa caafimaadkaaga iyo horumarka ilmahaagaba. ku dar afakaadhada cuntadaada maalinlaha ah. cuntada 8aad waa boorashka. boorashku faa'iidooyinku u leeyahay haweenka uurka leh waxaa kamid ah haween badan oo uur leh waxay la kulmaan lalaba subaxnimadii inta lagu guda jiro 3 bilood ee ugu horeeya ee uurka. boorashku waa cunto jilicsan oo si sahlan loo dheefshiido, waxayna ka caawin kartaa inay yareyso lalabada, isla markaana wuxuu ka qayb qaataa korniinka miisaan caafimaad leh. isku darka boorashka oo ka kooban
carbohydrates isku dhafan, fiitamiino iyo borotiino ayaa ka caawin kara haweeneyda uurka leh inay si fiican u maareyso miisaankeeda, waxayna siisaa tamar joogto ah iyadoo taageerta miisaanka xilliga uurka, taasoo muhiim u ah caafimaadka hooyada iyo ilmahaba. Cuntada sagaalaadina waa muuska. Muusku waa cunto hodan ku ah potassium iyo folate, kuwaasoo muhiim u ah caafimaadka hooyada iyo horumarka ilmaha uurka ku jira, waxayna ka caawisaa samaysanka maskaxda iyo neerfaha iyo lafaha ilmaha. Cunista muusku inta lagu guda jiro bilaha ugu horeeya uurka wuxuu ka hortagaa yareynta folic acid, taasoo yareynaysa halista dhalashada ka hor waqtigeeda. Ku dar muuska cuntadaada si aad u taageerto caafimaadkaaga iyo kan ilmahaagaba. Ugu dambeyntii, qodobka 10aad waa biyaha. Biyuhu waxay faa'iido u leeyihiin hooyada uurka leh. Haddaba xaddi intee leeg ayay u baahan tahay hooyada uurka leh inay biyaha cabto? Hooyada uurka leh waxay u baahan tahay inay maalintii cabto 8 ilaa 12 koob. Cabitaanka biyo kugu filani waxay ka mid tahay daryeelka ilmahaaga iyo naftaadaba. Sababaha biyaha loogu baahan yahay xilliga uurka waxaa ka mid ah ilaalinta ilmaha. Biyuhu waxay ka qayb qaataan samaysanka dheecaanka loo yaqaano amniotic fluidka oo ilmaha ilaaliya. Sidoo kale biyuhu waxay yareeyaan calool istaaga oo inta badan ku dhaca hooyada xilliga uurka leedahay. Ugu dambeyntii, 10kan cunto ee aan ka soo hadalay waxay muhiim u yihiin hooyada iyo ilmahaba, kuwaasoo kor u qaadaya caafimaadka hooyada iyo koritaanka ilmahaba. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like, share and subscribe si aad ula socoto xogo muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka haweenka. Intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno, caafimaadsan.